weynayo kama badnaan karaan uu dabagalayaa prescription buu shameeyay daawooyin buu qorayaa xaaladiisa step by step oo la soconaya laakiin general doctor oo kale markaad meeshiisa tagto waa la buuxaa qof kasta buuxo joogo nooc kasta oo dadku ay yihiin way joogaan qofkaas marka waxa laga yaabaa meeshaas joogo xanuunkiisa oo kaliya inuu ogaado oo meeshaas dhakhtarkaas general doctor oo xanuunada guud daaweynayo xanuunkiisa inuu ogaado ama xanuun baabi'i daawooyin yar yar loo soo qoro halkaas marka qofka xanuunkiisa markuu ogaado wuxuu u baahanayaa specialist inuu aado oo qof barnaamijkaas xanuunkaas meeshaas uu ka soo helay oo dhakhtarkaas uu soo sheegay inuu la aado dhakhtar kale oo specialist ah sida awgeed barnaamijkan waa barnaamij soo hoosgalayo daaweyntii quraanka ku daaweyntiisi waxay u baahan tahay qaab special ah in qofkii loo daaweeyo leen ashaba meesha soo galayso xanuuna la tacaalaya sixir iyo wadadiisi iyo qaabka qofka mucaalijka daaweynayo iyo wadadii iyo wasiiqadii in la maraa loo baahan yahay haday il tahay ishi iyo nidaamkeedii wasiiladeeda in la barayo u baahan tahay laakiin markii boqolaal qof la isugu keeno qofkii dhakhtarkii ama mucaalijkii ma wada xakameyn karo xakameyn la'aantaas marka waxay keenaysaa dad badan xanuunka inuu ku dheeraado oo arkayso qof 12 sano baan cilaaj ku socday buu ku leeyahay yani waxa leedahay qofka markii la wareysto oo la ogaado xanuunkiisa inuu u badan yahay il sixir midda uu u badan yahay markuu imaadaba aayaadkii arimaha qusay sida gaarka loogu maaragtay ba la saaraya taana waa xoog bay ku yeelanaysaa xanuunkii una nusqaamaya halka meelaha kale isleedahay maanta dhan aayaad kala duwan oo marna sixir la akhrinayo marna ishi la akhrinayo marna xasadkii la akhrinayo qofku aanan helaynin waxyaabaha aan ku arkaa waxay kamid tahay yani aan ka qoray kamid tahay hal qodob oo ku saabsan macnaha meeshaasi dadka badan isku imaanayaan مثلا dad badan oo xanuuno kala gedisan qaba imaanaya marka maalmaha kamid ah waxaan arkay labo qof oo dumar ah oo xanuunsan labadaba jiman baa ku kala jira jimanku marka midna uu adkeysanaya oo quraankiiba uu adkeysanaya oo iscilinaya oo isqarinaya midna waa cabaadaya oo quraankiiba gubaya kii cabaadayay oo qeylinayay baaki kale xusub ku dhuftay markaas wuxuu leeyahay naga aamus hana fashilina adkeyso waxyaanaha la yaabay kamid tahay adkeyso hana fashilina oo maxaa yeelay ku dhuuma meelaha anaga aan ku dhuumanayno maxaa la cabaadaysaa way aamustay gabadhi qeylinaysay oo gubanaysay way aamustay sida awgeed xeelad buu si xeelad ayuu si oo waxa weeyaan ku gaban karo مثال halkaas aan kala soo dhaxbaxa waxay tahay مثلا 10 qof hadii guri lagu xiro oo albaabka looga xiro 10 kaas qof wax way sameyn karaan waxay ku tashan karaan gurigan inay meel ka duleeliyaan siday uga bixi lahaayeen talay isu keenayaan laakiin hal qof hadii meel lagu xiro oo albaabka looga xiro waxa yaraanaya fikirkiisa iyo taladiisa iyo xeeladiisa way yaraanaysaa sida awgeed hadii qof kaligiis oo qofkaasna jin uu qabo ama sixir uu qabo yoolka la saaro xeelad kale ma helayo waxaad leedahay markuu jamaaca la isugu keeno يعني شياطين تكوجر dadka xanuunsan way ka dhiiranaansho badan yihiin markay kaligoodii markuu yahay oo qofka yani qofkii mucaalijka inay ku soo ordaan inay mashquuliyaan inay mikrofoonka jabiyaan inay asaga dhibaato u geystaan dhibaatooyin badan bay u horseedayaan isagoo isku haleynaya kuwa kale ee meesha ama muuqaalkooda way is support gareynayaan jiman waxa arkaysa uu yaraan 10 qof baa wadaadka quraanka akhrinaya ku soo boodayaan si ay maaragtay dhulka u dhigaan marka waxay soo garabsaday jimankii baa soo garabsanaya oo isticmaalayo gabdhihii bay isticmaalayaan ama raggii bay isticmaalayaan marka taas marka waxa go'aansanay in si aysan taasba u dhicin kaligiis qofkii yoolka la saaro kaligii maaragtay su'aal kale meesha ku jirto ma isdhihi karaa qofka mesela xanuunkiisa ama xanuunkiisa asagoo yani mug badan oo san ahayn hadii la dhaxgaliya dad badan
qofka saameyn inay ku keenayso ama wax dad isku mid ma ahan sixirka sida loo sameeyo ama loo maleego ama hadba qofka sibaa loogu sameeyaa mararka qaar shayaadiintu ama saaxiriintu waxay u maleegaan sixirka ilaa xad qofka inay ku dilaan dhimashada ilaahay gacantiisa ay ku jirtaa laakiin asbaabaha qaar ay isticmaalaan ilaahay subxaanahu wa tacaala idankiisana ku dhacdo mararka qaar marka qofkii xanuunsadaa meesha markii la geeyo asagoo matalan sixirkiisa dacfi ama wax yar iska ahaa ma laga yaabaa dadka dhexdeed badan la geeyo inuu kusii saamoobo ama xanuunkiisa uu sii ziyaado ama sii daro waa runtii waa su-aal wanaagsan oo dad badanna ay isweydiiyaan xitaa annagaa nala weydiiyey macnaha meelaha cilaajyada dad waxaa jira aanba teginba oo dadkaas aan dhex gelin oo markaad weydiisana ay ku leeyihiin xanuun baan ka soo qaadaynaa xanuun horlaan ka soo qaadaynaa hadda waa iska fiicanay laakiin haddaan dhex galno waaba dadka ku jiray baa naga soo raacayo arrintaas oo kale waxay ka mid tahay waxyaalaha aan qoray ka mid tahay qof iska fiican oo yacni ama il yar ay iskaga jirtay meesha hadduu tago way dhici kartaa in waxyaabo saameyn kale uu soo yeesho مثلا waxani waa wax waa jimankaasi Soomaalida hore waxay dhigi jirtay jin ooman baa galay heblaayo jin ooman baa galay waan maqli jiray waxaa jira qof iska ladan oo de dhaqaalaha haysto oo iska maartay Ilaahay u barakeeyay oo haddana xanuunsan oo jin la socdo iyo qof iska baahan oo maaragtay meeshii wala wada fariisanaya waxaad arkaysaa marka waxaa dhici karto in jinki baahnaa gabadhan la iska ladan jinka ku jiray uu saaxiib ka dhigto oo israacaan oo marka xanuunkii sidaas uu u noqdo xanuun tarmay oo gabadhii ladnayd wixii gabadhan ooman ka soo baxay inay soo gali karaan oo ay qarin u noqon karaan oo maaragtay sidaas ay u dhibaateyn karaan ayadii sidaa ogeed xanuunka gabadhii ladnayd waa uu sii ziyaadaya ishii iska yarayd baa sii ziyaadaysa waxaad arkaysaa maalan markaan saa ku leeyahay waxyaalaha aragnaa waxay ka mid tahay dumarka inta badan meesha imaado waxaad arkaysaa laba qof oo hore aan isku aqoonin cilaajkaas isku bartay jamaaciga ah tanna waxay qabtaa jin iyo xanuun ay qabtaa tanna xanuunadii bay qabtaa way saaxiibeen meeshii bay ku saaxiibeen intay isku barteen meeshii cilaajka isku barteen labadaas gabdhood oo meeshaas isku bartay waxay noqonayaan saaxiibo aan la dhex geli karin jinkoodii wuxuu noqonayaa saaxiib tan hadday dad la dagaasho tana u soo hiilinaysa tan hadday meesha ku xanuunsato way sabood garaynaysaa ma garanaysaa waxaa weeye way isla soconayaan awood isla socotay noqonayaan marka taas awgeed sidaa awgeed waxaa fiican qofka in si gooni ah loo cilaajiyo Sheekh Axmed bal ka waran xagga sirta iyo leen waxaan ognahay qofka markuu arrimahan oo kale ama quraankii la saaro kale waxaa jira waxyaabo badan oo ku hadlo sax bal ka waran arrimaha sirta iyo qofka de waxyaabaha u gaarka in la ogaado bal halka ka waran waxyaabaha runtii waa arinta ugu daran ee xagga loo baahan yahay walaalo badan inay ku baraarugaan dad badan oo xanuunsan inay ku baraarugaan loo baahan yahay qofka la daaweynayo wuxuu leeyahay sir buu leeyahay wuxuu leeyahay xushmad gooni oo walaqad karamna bani aadam ilaahi subhanahu wa ta'ala oo karaamo gooni asii qofkaas secretkiisa iyo waxa uu ku hadlayo waxaa loo baahan yahay in la kaydiyo oo la ilaaliyo sidoo qofka dhakhtarka ah mucaalijku waa dhakhtar daaweynaya dadka Soomaalidu waxay tiraahdaa dhakhtar iyo umuliso iyo maxaa la dhihi jiray umuliso iyo qof weyn iyo umuliso Soomaalidu waxay dhihi jirtay umuliso iyo qof weyn waa yeel miyahay sida wax ogyihiin ma sheegaan umana arkaan marka dhakhtarka waa la mid dhakhtarka sidoo wax u arko maaragtay uma sheego waxyaabo waxaa jira xitaa qof adoo wato oo qofkii dhakhtarka intuu la galay meeshii yani khaaska ahayd hadduu qofkii dhinto dhakhtarka si quman buu wax kugu sheegaya si tartiib ah buu inuu qofkii dhintay buu kugu sheegaya adiga xaaladaadu fiirinaya
ma garatay si adiga muxuu ilaalinayaa adigu qalbigaaga ilaalinayaa maxaad u baleen marka qof nool waa ka sii daran yahay qofkii waa nool yahay secretkiisii inaad sii faafiso aad ka hadashiiso amaama aljamaahiir gabadhii ay noqoto yani mashhuur amaama aljamaahiir gabar waalan oo jin qabta loo aqoonsado waxyaalaha macnaha jamaaciga aan ka qoray ka mid ahay gabadhaas daris bay leedahay dad baa meesha joogo heblaayo jin bay qabtaa way waalan tahay baa la leeyahay laakiin markay keligeed iyo wehelkeedii intay ku imaado la cilaajiyo cid taqaano ma laha arrimaheeda cid taqaano ma laha waa arrimo khaas ah ma fahamte hadday wax ka dhaxadlaan waa arrimo khaas u ah ka sii daran markii kaamira lagu sii qabto xaalkeeda wuu kasii xumaanayaa kaamiradaas waxay keenaysaa dabcan xagga caafimaadka saameyn bay ku yeelanaysaa xitaa haddii wixii baxa inta la yiraahdo wax baxaya iska dhigaan oo dhulka ay ku dhacaan berri ka maalin waxay daawanaysaa fiidiyogeedii oo dad badan ay daawanayaan bay arkaysaa ama wiilka wuxuu arkayaa fiidiyogiisi asagoo waalan oo jin ku jiro psychology ahaan bay saameyn u yeelanaysaa qofkaasi cuqdad nafsiga galaysa commentiga laga bixinayaa waa la yaqaanayo waa heblaayo waa hebel gabdho gaar waxaan garanaynaa ku guur waayey oo maaragtay guurkii ka sagseegay oo la leeyahay waa tii waalnayd ama nin la leeyahay waa kii waalnaayo mashhuur oo yani lagu bartay cilaajyadii u socday laakiin markii qofkii sirtiisii wixiisa dhan loo qariyo si special loo cilaajiyo loo daaweeyo daawadiisii wixiisii gaar looga dhigo waxa weeyaan wax walba u asturiyay caafimaadkan ilaahay subxaanahu wa tacaala u hay ma sha Allah runtii sheekh Axmed waxaad ka dhawaajisay arrimo aad u qiimo badan runtii su-aasha ugu dambaysa aan rabo inaan barnaamijka kusoo gabagabeeyo isagoo aan rajaynayna biidni illaahi tacaala waraysyada noocaana inuu musalsal noo noqon doono oo ummadda muslimiinta ay xarunta uga faa'iideyni doonto insha allahu tacaala sheekh Axmed su-aasha ugu dambaysa waxay noqonaysaa ma jirtaa qofka matalan nidaamkaas specialka loo cilaajinayo ama guud ahaanba cilaajka maadaama aan soo sheegno labada xaalad inay kala fiican tahay oo dadaal iyadoo la wada bixinayo haddana xaaladda gaarka ah qofka loo tarkiisinayo inay ugu rajo dhowdayo haddana marka qofka quraan la saaro muddo intee laag buu ku caafimaadi karaa waa lasleeyahay caafimaadka walaalle muddo intee laag buu ku caafimaadi karaa su-aasha ah runtii dad badan baa ku jaha waraarsan oo inta badan cilaajyada aado qaar baa waxay ku leeyihin intaasoo sano ayaan cilaaj dhex fadhinaa muddada marka qofkaas uu ku caafimaadi karo awalan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa caafimaadka isagana caafin kara balse sidii ay u qoreen dadkii barnaamijkani dabagalay ee takhasuska u yeeshay waxay ku xiran tahay laba arrimood labada arrimood baa waxay tahay kow qofkan maalan sixirka loo sameeyey heer intee la eg buu la egyahay qaabka loo sameeyey sixirkan waa qaab noocee ah ishan qofka saameysay il noocee ah weeye maxaa lagu ilaystay maalan sixirka oo kale sixir waxaa ninka aqoontiisa ay ku xiran tahay qisadii dhex martay nabiyullaahi muusa calayhi salaam iyo fircoon saxaradii fircoon markii la ballamay oo in meel isugu yimaado lagu ballamay wuxuu sameeyey selection wax la yiraahdo doorasho sixirool oo dhan umuusan yeerin wuxuu u yeeray bikulli saaxirin caliim kuwii saaxiriinta ugu dambeeyey ayuu ballansaday oo meel looga maaragta ka dambaysa meel ka dambaysa aysan jirin markuu keenayna haddii wixii dhacay waa la ogaayo nabiyullaahi muusa ilaahi subxaanahu wa tacaala yiri wa alqi maa fii yamiinika talqaf maa sanacu wixii markaasi ay daadiyeen oo sameeyeen oo dhan ushii nabi muuse ilaahi subxaanahu wa tacaala mas u bedelay baa eber ka dhigtay isla markaas qaar suxrada ka mid ah waxay ogaadeen cilmigan ayaga cid oga sarreysa inaysan jirin nabiyullaahi muusena uusan sixiroola ahayn waxaan mucjiso kale oo rabbaani ah inay tahay bay ogaadeen lianna ayagaa waxay yihiin meesha ugu dambeysay oo sixirka lagu baran lahaa ayagaa bartay
sidaa ogeed bay mucjisadaas qaarkood kusoo islaameen oo cilmigii ay sixirka ka gaareen ilaahay subxaanahu watacaala sabab oga dhigay oo hidaayo oga dhigay marka sixirku cilmi la barto weeyaan caafimaadka marka qofka waxay ku xiran tahay sixiroolahaas cilmiga uu leeyahay haddii uu yahay mid iska kitaab gaablo way Soomaalidu tiraahdaa meelaha wax ku samaysto oo xoogaa lacag iska aruursado bismillah marka la dhahaabo waa cararaya waa buraya laakiin sixirka mutakhasiska ah qofka aadka u yaqaan qofka uu sixiro sixirul aswadka sixirul qatl arwaax midaha jiro qofka lagu dilaba oo qofka kaw looga siinayo sixirada noocaas ah dad mukhassisiin ay isticmaalaan waxa la yiraahdaa marka dadkii wax ka qoray arrimahaas usbuuc ilaa iyo 6 bilood xanuunada noocaas oo qatarta ah sixirka qaabka nijaasada laga sameeyo sixirul aswadka iyo waxyaalahaas waxa lagu daaweeyaa bay yiraahdeen usbuuc iyo 6 bilood inta u dhaxayso bil baa ilaahay qof ku caafinaya 2 bilood baa qof ilaahay ku caafinaya 3 bilood baa qof ilaahay ku caafinaya yani waa cudurkan TB-da la yiraahdo kale TB-du waa la baaray يعني waxaa la ogaaday ciladeeda iyo inta heer ay mari karto daawada la siinayo ilaa 6 bilood baa loo khasisay Soomaa tanna sidoo kale rag baa baaray oo ogaaday sixirada noocaas oo kala ah inta ay ku biskoon karaan بعض العلماء وبرنامجkaas ku takhasusay waxay leeyihiin hal sano xanuunada qaar oo qofka jirkiisa uga baxaya والعلم عند الله marka muddada waxay ku xiran tahay qofka mucaalijka ah oo si wanaagsan oo takhtiid ah sixirkii sida loo buriyo garanaya oo la tacaalo iyo qofkii sixirka sameeyay cilmigiisa intuu la ekaa muddadaas ay ku xadidan tahay muddada qofka la cilaajinayo iyo intuu ku caafimaad karo ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku caafimaad karo صح oo asbaabtii la wada maraya asbaabta oo caafimaadka ilaahay baa keenaya laakiin asbaabta ما شاء الله تعالى دكتور أحمد علاج aad baad u mahadsantahay barnaamijka caawa aan ugu talagalnay walaalaha muslimiinta inaan soo gudbino oo ku saabsanaa barnaamijkii musalsalka ah ee xarunta al-hilaal ay idin soo gudbinaysa caawa biidin Ilaahi tacaala inta ayaan ku soo gudbin doonaa barnaamij caankan oo kala inta aan ku kulmi doono biidin Ilaahi tacaala waxaan idin kaga tagaynaa fi amaanillah. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum asalaam wa rahmatullahi